goorma suuqa laga baxaa marka goorma ayaa suuqa coinka la iska iibiyaa waqtiga la iska iibiyaa muxuu noqonayaa qaybta marka waxaan ku arkaynaa goorta suuqa marka laga baxo ama coinka aad hore u haysatay la iska iibiyo waxay noqonaysaa kow marka coinku aad u bamgareeyo korkac uu sameeyo tusaale 200 boqolkiiba ilaa 500 boqolkiiba coinku markuu aad kor ugu kaco xilligaas oo kale coinka hadii aad ku jirin lama galo waa la iska ilaaliyo xilligaas oo kale sababtoo ah coinku marka waxa jira dad badan oo hayba ku sameeyo oo coin marka baraha bulshada coinka inuu qabsado la coinka saa faa'iido sameeyay coinka weeyaa hal lagu yaaco markuu coinku uu coin korkac sameeyay boqolkiiba 200 500 inaad siraado coinka kor buu sii soconaya adna sii raac waxa weeye hadhow korkaca uu jiro haduu hal mar baa laga inuu hoos soo daato aad khasaare badan aad la kulanto markaas oo kale coinka lama maalgashado waa marka coinku ama coinisku ay kor u kacaan oo qiimaha coinku aad u sareeyo ha maalgashan oo suuqu cagaar u yahay ila waxaan niri marka uu suuqu soo daataa la maalgashada lid waxa ku ah goorta aan la maalgashan waxa way suuqu markuu korkaci jiro uu aad suuqu cagaar u yahayna lama maalgashado suuqu waa la sugaa suuqu correction buu sameynaya dib uu soo noqonaya mar walba fursadaadu waa imanaysaa suuqan wuxuu caan ku yahay fursad buu bixiyaa mar walba marna kor buu kacaa marna dhulku soo galaa adiga markuu dhulku soo galaa sugaysaa marba hadii coinisku ay yihiin profit ay ku jiraan waxa weeye halka haduu joogo ha iibsan sababta ah coinku markuu meel sare gaaro dadka iibso dhanba iska iibinaya dadna dib u soo daadanaya adigu hadaad kor ka iibsato marka ay khasaara la kulantay marka waxa la sameeyaa coinku markuu kor joogo lama iibsado markuu aad qaali u noqdo lama iibsado iska ilaali markaas oo tusaale qof waxa laga yaabaa Solana oo coinka la yahay Solana inuu $290 isagoo maraya halkaas oo kale isagoo qof waxa laga yaabaa inuu 120 ka soo raacayo oo 290 sugayo markuu gaaro uu ka baxo hada adu 290 ku iibsata ka war oo lagaga baxo tii adigu waxa weeye coinka dib u kaaga soo daadanaya sababta meel profit fiican markuu sameeyo coinka dadkii maal gashaday dib ay lacagtooda la baxayaan coinku soo daadanaya markuu soo daato hadii 150 u yimaado coinka 290 kala baxday maxaa ku sugantay marka khasaara ku sugantay hadhow dib u noqdo waxa laga yaabaa 290 ka aad ku iibsatayba inuu coinku u dhaafi waayo halkaasna khasaara xoog leh aad kala kulantay marka taasina waa qodob waxa kale oo suuqa laga baxaa marka suuqu guud hoos u dhaco tusaale suuqaad ku jirtay coinskaaga faa'iido fiican bay ku sameeyeen laakiin suuqa hoos buu soo daatay adiga waa loo gambiyaa lacagta USDT ka dhigo ka bax lugaha kala bax waligii baa soo daato sababta faa'iido joogta taasina waa qodob marka suuqa guud uu hoos u dhaco oo downward trade uu jirana suuqa waa laga baxaa xaaladda labaad xaaladda saddexaad laga baxo waxa weeye marka uu profit uu sameeyo ama profitkii aad hore u qorshaysatay marka suuqu uu sameeyo tusaale suuqa waxa qorshaysatay profit inta leeg markuu gaaro inaad ka baxdo profitkaagi iyo levelkaagi marka rabto lama soo sugo hadaad iimaankaas ka sii qaado oo salaal wax ka weyn ma sugaya hada suuqu inuu dib u soo noqdo dhici karta haduu dib u soo noqdo aad khasaadana iyadana waxa weeye waa dhibkeeda leedahay marka profitkii aad ugu tala gashay tusaale coin baan maal gashaday waxaan maal gashaday coinka ka soo qaad la yiraahdo XRP waxaan ku maal gashaday $1 iyo bar $4 buu tagay ama $3 iyo bar buu tagay qiimo aad u sareeya qiimihiisa hore all time high cusub buu sameeyay qiimihiisa kor buu u kacay markaas oo kale iska iibi lacagtaada wax gashataa marka back up ka dhiga USDT u hayso markuu soo daato hoos ka soo raaxdana isagoo jaban kadibna marba meesha uu ugu sareeyay uu gaaray oo faa'iidada aad qorshaysatay halkaas oo kale uga hari kartaa goorta suuqa laga baxo waxa weeye marka project news xun uu yimaado oo suuqa aad news xun ama warar xun ay soo baxaan ama suuqa la hagareeyo hackers uu yimaado ama dawladihii oo kale shuruucdii oo kale aad caqabado u noqdaan ama dadka macnaha wadamada marka dhaqaalaha go'aamiya ay dabcan isqan qabsi u yimaado ka soo qaad China iyo Mareykanka kale markay isqabsadaan oo kale buuqa Donald Trump hadda buuqa uu abuurayo kala suuqa hoos buu soo daataa suuqu marka siyaasadda kriptadana waxyaabaha saamaxa kamid ah suuqa siyaasadda marka sida ay u jirto inay low tahay inay high tahay siyaasaddu markay high noqoto xaaladdu aad u noqoto la isla qabsado suuqan aad buu soo daataa markaas oo kalena waa laga baxaa news xun markay jiraan projectiyo xun iyo warar xun ay soo baxaan waa laga baxaa waxa kale oo aan suuqa leegelin hadii aad ku jirtana laga baxaa marka hayba badan jiro waxa laga wadaa marka tusaale qof walba uu ka sheekeeyo qof aad ku ogeed warar ka hadli jiray qof aad ciyaaraha ku ogeed oo ciyaara ka hadli jiray
qof waxa weeye walaalkaayo iskalihi alla iska ahayo waxa weeye hadii la ku roon yahay wixiisa iska raacan jiray kubadiisa iska ciyaarayay maalinta uu kaaga warramo cryptocurrency iyo uu ku raado cryptada faa'iido laga sameeyo war cryptada bala ka dhacday newsisku aad u qabsadaan dadka influencerka youtuberski aad wararka u soo bato xaaladaasina waxa la yiraahdaa haybe waa xaalada aad aragto maamada caanaha gelaysa inay crypto kaaga sheekayso xaaladaasna crypto waa laga baxaa waana istiraatiijiyada isticmaalaan guud ahaan dadka marka cryptada ku dhex jira xaaladda isticmaalaan way marba hadii warka cryptada uu baaho waxa dhacaysa waxa keenaya marka in laga baxo waxay tahay markii warkii uu suuqa galo oo qof kasta ogaado qof kasta wuxuu isku dayayaa maadaama coinska ama cryptada faa'iido laga sameeyo inuu isna soo galo si uu faa'iido u helo markay dad badan soo galaan coinska dhaqaaqa badan bay sameeyaan markay dhaqaaqa badan sameeyaan dadkii hore ugu jiray faa'iido fiican markuu u sameeyo way ka baxayaan markay ka baxaan coinka dib u soo laabanaya dib markuu u soo laabto qofkii gadaal ka soo raacay ee warkan suuqa ku jira soo raacay maxaa ku dhacaya marka isaga cilla in looga soo tago marka xaaladaasna waa laga baxaa hayba la yiraahdaa waa xaalada baraha bulshada TikTok Facebook Instagram dadkii arki jirtay iyagoo wax kala ka warramay inay ku kala kacsanayaan marka barihii bulshada aad ay u noqoto marka cryptadii inay suuqa aad u qabsato waa dhawad hadda 2025 bilowgeedii markay ahayd bishii koowaad 2025 aad baa suuqa crypto u kacay dhaqaale badan buu sameeyay aad baa looga qadeeyay aad buu u kacay qof walba kaaga sheekeynaya waxaan xasuustaa yari dhalinyaraayo aan weligiiba crypto maqal oo ka warramayo crypto waxa laga faa'iiday qof baa intaas oo dhaqaale ka qabtay mid baa $200 ka shalay oo $10,000 ka sameeyay xaaladaas oo kale markay tagto suuqa aad u qabsato xaaladaas oo dadka yaqaana cryptada ee suuqa fahansan way ka baxaan banking bay galaan wixii ku sugan suuqa marka inuu correction soo sameeyo oo dib u soo noqdo oo uu sameeyo marka bear market xaaladaasna marka waa laga baxaa marka xaalada suuqa hadii aad ku jirteen la iska iibiyo hadii aadan markaa ku jirin aan la iibsan waxaan ku sheegnay dhoo qodobadan markuu coin aad loo bangareynayo waliga ha gelin coin ba waxaad ku ogaay maanta 100 hadda ka soo qaad waxaan ku tusaale ku siinayaa Donald Trump coin uu soo saaray wuxuu ku soo baxay wax $5 meelahaas ku soo baxay hal habeen wuxuu ku noqday $50 hadda wuxuu marayaa $4 iyo maraya $50 buu ka soo noqday $4 buu yimi ka waran qofkii soo maqlay coin ba $50 laga sameeyay dad baa ka qadeeyay lacag badan baa laga qabtay maqlay oo $50 ku galay ka war $4 ma inta dhaafilaayo oo fadhiya qofka khasaaro fadhiya marka coin aad hadda aragto baraha bulshada oo aan qiimo lahayn oo dad influencer ay qiimo u sameeyaan sababta dad waxa jira coins kasta dad macnaha mashruuca qayb ka ah ama project wax laga siiyay oo suuqeyn sameeya xayeysiin sameeya dad baraha bulshada caan ka ah Krista marka aad baa wax weey baraha bulshada coinkaas u qabsanay sababtu waa maxay dadkani xayeysiinayay waa dad iyaga interest gooniya ama linkiyo ka diyaarsanaya ama interest gooniya coinka ku qaba projectiga ku qaba marka mar walba waxa ka dhicinayaan positive-ka marka marna influencer warkooda lama qaato sababtoo dam ay leeyihiin baa meesha ku qarsoon mar haddaad aragto coin dabada laga riixayo oo kor u socda adeero hegelin ka har ka joog banaanka ka joog marka suuqa guud hoos u dhacana oo hoos dhac xoog leh uu jirana oo hoos coinku suuqa u daadanayo adigoo faa'iido qabeena kala bax lacagtaada oo xaaladaasna waa sida marka profitkii loogu talagalay gaarana xaaladaasna ka bax marka project news wuxuu yimaado oo suuqada faa'iido ku jira hadii warar xun ay yimaadaan wararka xun suuqa soo daadanayaan marka xaaladaasna ka bax marka hayba badan jiro oo suuqa habar kasta ay ka hadashana ka baxa isna ha ku sii jirin intaas marka waxa weeye goorta suuqa laga baxo dunidu waxay si xawli ah ugu socotaa dhanka lacagaha digitalka laakiin dad badan wali ma haystaan faham sax ah oo ku saabsan cryptocurrency ma aha hanti degdeg ah waa aqoon u baahan barasho faham iyo feejignaan galaysan academy waxay ku diyaarisay koorso lagu baranayo cryptocurrency oo bilow ilaa dhamaad ah taasi oo aad ka helayso hagitaan ku saabsan sida maalgashi iyo trading loo sameeyo waxaad helaysaa buug ku qoran af Soomaali oo si fudud u sharaxaya waxa ay tahay cryptocurrency iyo muuqaalo duuban oo tallaabo kugu gaarsiinaya sida aad u sameyn lahayd maalgashi iyo trading koorsadu waa mid waxbarasho oo kaliya waxaad ku baran doontaa maareynta khatarta iyo sida go'aan xog ku salaysan loo qaato haddii aad rabto inaad barato crypto si mas'uuliyad leh oo aad hesho faham cad ka hor inta aadan maal gashan nagala soo xiriir WhatsApp kan hoose